saddex su'aalood oo isweydiin mudan. Su'aasha koobaad maxaa ku soo kordhay dhinaca WhatsApp-ka? Su'aasha labaad maxay yeeli kartaa siyaasaddan cusubi? Su'aasha saddexaad WhatsApp maxaan ku bedelan karaa? Saddexaad su'aalood maanta ka jawaabayna. Su'aasha koobaad maxaa ku soo kordhay dhinaca WhatsApp-ka? WhatsApp-kii waxaa ku soo kordhay in ay shirkaddu soo saartay oo ah in chat-iskaaga macnaha hadalladaada iyo call-iskaaga iyo waxaad ku hadlayso oo dhan in Facebook la share gareyn doono. Taasaa soo baxday. Su'aasha labaad maxay yeeli kartaa siyaasaddani shakhsi ahaan marka loo eego horta waxba kuma yeeliso. Innaga Soomaali ahaanna sidii wax noo yeeshaaba aad buu yar tahay waayo waxaynu qarsanaa ma jiraan guruubiyadan la sheegay leeyahay sirtan waa laga xadayaana iyaga laftirkoodana wax alla wax ka qusaya ma jiraan waayo guruubi aan qarsanaa ma jiraan badankooda waa public waan ku xaraabisanaa waan ku kaftanaa marka taasina dib weyn ma sii laha chat-iskaagana de asxaabtaada la hadlayso mooyaane ma laha wax weyn oo muhiim ah qarsan karto. Su'aasha saddexaad WhatsApp-ka maxaan ku bedelan karaa? Macnaha hadii if ay jiraan hadii aad wax qarsanayso WhatsApp-ka maxaan ku bedelan karaa? WhatsApp-ka waxaad ku bedelan karaysaa laba program midna waxa la dhahaa Signal midna waxa la dhahaa Telegram. labadaba si fiican ma naqaana. Telegram-ku iyo Signal-ku labaduba waa isku mid waxba isma si dhaamaan inkastoo Signal-ku yara qaab kale oo yar adag yahay haddana WhatsApp-kii ma gaadhayaan labadooduba marka runta laga hadlo. marka WhatsApp-kiisa wuxuu lahaa status buu lahaa last seen buu lahaa qofka xilli ka kacay arkaysay online wuu lahaa backup buu lahaa macnaha messageedu hadii aad WhatsApp-ka saarayso kale wad backup gareysanaysay wad si keedsanaysay بعدين marka WhatsApp ku soo laabato ayaad backup-kaaga soo ceshanayso bartaad maalintii kaga tagtay ayuu kaaga sii wadiyay marka kiina ma laha labadani ta ugu daran status-kan aan wax soo dhigano aynu istuska u naqaano kaasna ma laha labada program-ba Telegram iyo Signal-kuba. Signal-ka hadii ay eegno yaa leh waxa leh ninka la dhaho Brian Acton waa ninkii markii hore WhatsApp-ka lahaa ee WhatsApp-ka sameeyay Facebook wuxuuna ka iibiyay Facebook marka inaga tayna la gudboon imaka inagu WhatsApp-ka waan sii wadan karaynaa waxba kuma yeelayso laakiin hadii aad wax qarsanayso macnaha aad wax private aad ku share garayso WhatsApp-ka لازم وإناد إسكي جورته ودو جورته سيجنال كا أمبا تليجرام كا فرمشي كودن بيا أما معلومات ودن بيا عن سلهل وداق وحوي هاي واتساب كي مركو أركي إن أدون كي أوردن كعبانيان نيو بريفيسي بوليسيغان عصب إن كعبانيان مركو أركي waxa uu sameeyay 3 bilood buu ku daray wuxuu dhahay may bay dhacaysaa may hadda agri taawaydo akoonkaagu waa isxiraya ilaa abad ruushka waa timaamada sir laga xaday Turkiga waa kii isaguna dareemay in siraha la xadi karayo waa kii iska xiray Pakistan waa tii laga cabanayay hadii uu ku cajabiyay muuqaalkani fadlan subscribe ka iloobin share-na noo sameeyo adoo mahadsan like-tana ka iloobin wixii ra'yiyeed qabtana comment-iga noogu soo qor. Thank you very much.